odayaasha maanta halkaan isugu yimid dhaqanka banaadiriga warkiina waa dhageystay maantay maalin aan go'aan qaadanayna ma ahan qalbigiina horta khayr u sheega inaan idin dhageysto ayay maanta ahayd wax badan aan ka fahamnay guddiga fiidka iyo xalinta khilaafaadka oo halkan ila joogan waxaa markhaati uga dhigay ilaahay ka soke inay dhagahooda ku dhageystaan maantay sidaad u hadlayseen iyo qaarkiin waxyaabaha aad diidan tihiin waan ka dheregsannahay dhammaanteen marka qalbigiina khayr u sheega waxaan isku dayeynaa waan ogahay dhibab badan ayaa lagala kulmi doonaa sida wax laydinkugu qaybin doono 49 gambar soomaan ya 49 gambar 5 kursi oo qaybiya waa shanigeeday wadataa kolleeto bini aadan aan nahay sidoo ilaahay wax noo tuso wada tashi dadaal ayaan ku bixinaynaa hadduu alle idmo annagoo gacan siinayno guddiga idinka mas-uulka idinka ah ee siid ay hogaaminayso banaadiriga ay hogaaminayso Sacdiya Boolaay waxaana la shaqeynaya aan rabaa inaan idin sheego guddiga fiid gudoomiyaha ama gudoomiye ku-xigeenka mid baan u magacaabayaa iyo guddiga xalinta khilaafaadka gudoomiyaha ama gudoomiye ku-xigeenka sida aan isugu afgaranno iyo tiim xafiiskii ka mid ah oo korjoogto ah oon faragelin karin waxaan rabaa sida ugu hufan inaan saddexdaas group oo ay anigana aan controlayo aan arintaas u guda galno markaan aragno labadan bari saddexdan bari wixii ka soo baxa geedka orod ku kortid maxaa la yiri orodaa looga soo degaa orod kuma korayno degdega dhaafa 5 kursi waaye waqti fiican aan qaadanaynaa isbuuc 2 isbuuc tartiibteen hadduu Allah subxaanahu wa ta'ala Sacdiina waa u sheegaya la degdegin meel loo degdegayo ma lahan go'aanka ugu dambeeyo oo warbixinta markay ii keenaan markaasaan ilaahay go'aankaas aan isleenahay waa kan ugu dhow aan qaadan karno ayaan ilaahay u tabakalaynaa soomaan tabakalkaasaan ku soconaynaa aniga shaksi ma wati waa idin sheegaya kursina idinkama rabi in laydan dulmiyana ma rabi sidoo ilaahay igu ogyahay ayaan qalbigay idinkaga sheegaya waxaan leeyahay dadka banaadiriga meel kasta ay joogaan gudo iyo dibad walwalka iska daaya waa dadaalaynaa xaqaha u arkina qof jeclaysi hebel hadduusan kursiga helin cadaalad daraa dhacday yaa loo arkin hebel hadduu helana cadaaladaa dhacday yaa loo arkin waxaan isku dayeynaa inaan alla tabakalno iyo qaybiskaas siday saaxiibaday sheegeen 49 gambar hadday ahaan lahayd wareeg a ku heshiisaan hadday ahaan lahayd isla kuwii hore wax qabiilaadka u gooni ah aan ku xaq dhowrayno oo aan ku tixgelinayno ay qof kastana waxaad ogaataan inuu tartamayo oo markaas loo garto beeshaas ama gambarkaas oo loo arko qof kasta ama hore ha u joogay ama mid cusub ha noqdo waa la tartamayaa meesha marka cilada ka jirto waxaa waaye shacabka Soomaaliyeed inay ogaadaan ay tahay kursigaas waxaa mas'uul ka ah ninka beeshaas ugu odaysan ama suldaan ama malaaq ama oday dhaqameedka ugu weyn ayaa mas'uul ka ah waxaa ku xiga 2 oday dhaqameed waxay ku soo darayaan guddiyada siiba guddiga siid 2 xubnaha beeshaas ee bulshada rayidka ah oo isla beeshaas kursigaas ku tartamayso waa loo qaybinayaa 5taas waa loo qaybinayaa dadka tartamayana waxaa la rabaa qof kasta inuu cadaaladaas iska dhaxarko oo 5taas oday ay iska dhaxarkaan 3daas oday iyo 2da bulshada rayidka ay iska dhaxarkaan marka intaas la sameeyo 5taas qofood ayaa waxay aan tababar la siinayaa fiidka iyo xalinta khilaafaadka iyo siidka siinaya tababarkaasna wuxuu ku saabsan yahay siday kursigaas 101giisa ergada ah loo qaybin lahaa si xaq loogu qaybin lahaa si sharci loogu qaybin lahaa si nidaamsan loogu qaybin lahaa markaas ay foomkaas buuxiyaan ergadaas guddiga ay soo magacaabaan 101da ah tababar la siinayaa maalintaasna waxaa la shaacinayaa kursigaas musharaxiintiis kursigaas u tartamayso maalintaas ay soo dalbanayaan hadduu Allah subxaanahu wa ta'ala idmo markaas waqtiga loo qabanaya guddiga siid oo Sacdiya Boolaay hogaaminaysa u qabanaya tartan
maalintaasaa tartan la gelayaa ka hor shuruudo ayaa jiro odayaashii lasoo qoray oo 3 oday caaqilka ugu sarreeyey iyo 2 oday oo ku xigto iyo bulshada rayidka marka la soo dejiyo waa la soo dejinayaa xalaal maxaa la yidhi maalin cadaa la qadaa derbigaasaa lagu soo dejinayaa sacdiya boolaay waxay kusoo dejinaysaa meediyahay kusoo dejinaysaa maalintaas 2 maalin 3 maalin uu dhegsanaanayaa qofkii ka cabanayo ka qaylinayo waqtiga isaga dhumin xafiiskayga waxaa jooga guddiga xalinta khilaafaadka siid waxaa jooga fiid oo markaas la shaqaynayo ergaa joogto weli ergada waa idiin weyneeyo dowlad goboleedyada xalinta khilaafaadka iyo fiid waxay u diraan qof oo tiimka hoose ah aniga waxaan idin xil saarayaa guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka oo kiiskiina waa culus yahay si ay isha ugu hayaan markaas odayaashaas 3 ah iyo 2 bulshada reedka la soo dejiyo markaas ciddi cabasho qabto hal la joojiya la leeyahay qofkii qaldan ama boob ku socdo ama beeshi aanu u dhalan oo boob ku socdana waa laga saarayaa marka wixiina waxay noqonayaan wax maalin cad la qalay intaasaa idinka ballan qaadaya hadduu alla subxaana watacaala idmo daahitaankana degdegsiiyo waay ha u fahmina inaan iska hubinaan rabnaa marka in aan ku degdegno aqoon darre ya cadawey waxay u tahay xaqa soo maahan aqoon darrada marka intaan ku dhici lahayn xaq darradaas waxaa idin leeyahay qalbigiina khayr u sheega qof kasta soo dadaal tartan usoo diyaar garoow xaqaagana waa helaysaa hadduu alla subxaana watacaala idmo